soo galeen oo Zoom-ka maanta sugaayay aad u mahadsantiin waqtigiina qaaliga ilaahay in shafo waxaan bilaaban doonaa insha allahu tacaala magacayga waa cabdullaahi barre kambanigani hadda siriyar idinka siiyo kambaniga intaan markaan kusoo biiray kambaniga waxaan kusoo biiray bishii lasoo dhaafay sideedaad waxaan ku jiraa bil iyo wax yaraaba ku jiraaba marka maasha allah kambani intaas kusoo biirin ka hor kambanigan intaan kusoo biirin ka hor anaa horaa u maqal dhowr bilood ka hor markuu cusbaay laakiin markaas jaanis uma helin laakiin baaritaan badana wax badan ku hay ilaa 2 bilood ilaa 3 bilood ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray inaan bishii hadda lasoo dhaafay sideedad inaan iska diiwaan geliyo markaa ku qancay xaalkiisa dhanna aan ogaaday adinkana waxaan rajeynaa insha allahu tacaala caawa markaan zoomkaan dhammeeno inaad adinkana ku qanci doontaan muxuu ahay wax badanna aad ka fahmi doontaan xitaa ugu yaraan overview aad ka heli doontaan haddaad heshaanna wixii kale adinka aad siiraasan doontaan insha allah marka la soo dhawaada waqti anigoo idka cunaynin barnaamijka horan u bilaabanayna horta kambanigan magaciisa waxaa la yidhahdaa Livegood waxaa la aasaasay sanadii lasoo dhaafay bishii 12aad ama December saa u taqaanid ayaa la aasaasay adiga almost wuxuu ku dhow yahay inta uu jiro kambanigani muddo 10 bilooda sanadka wax yaraa ugu dhiman kambanigani marka saan loo fiiriyo waxa uu soo saara dhan oo kambanigani ah oo productyada uu soo saara halkan ay ku cad yihiin sharxitaan badan buu u baahnaba kambanigan productyo soo saara oo ah fitamiinada yani fitamiino soo saara skin care-yada waxyaaba ku saabsan oo soo saara borotiinada oo jiimka loo isticmaalo soo saara waxyaaba badan oo ahay productyadan la halmaala ah ayuu kambani soo saara waa ahay maasha allah kambanigu overviewgiis horta waa kaas wuxuuna ku yaala kambaniga waxay isweydiinaysaa kambani intuu ku yaala wuxuu ku yaala kambaniga cariga ee maraykanka magaalada gobolkan california ku yaala marka kambanigu inta badan dadku waxay isweydiiyaan kambani maraykan ku yaala see ula macaamili karnaa maanta dunida waxu martay digital ay noqotay qof walbana maanta onlinekaas ku socda teeda kale dadka inta badan su-aalaha ay isweydiinayaan waa kambani maraykan ku yaala see ula macaamilnaa oo yani kuma kalsoonin ah kambaniyo badan saa nugula gaaday ah taasi waxaa soo afjaray liidharo badan oo cariga maraykanka jira kambanigana ka mid ah oo maanta darajada ugu sarreysay maraya platinum iyo diamond ayaga meesha ay degan yihiin muxuu ahay kambaniga cariga oo ku yaalo noo soo gaado noo soo hubiyey maasha allah waan ugu mahad celinayna waqtigooda qaaliga ayna siiyeen aadaan u mahadsantihiin kambanigan Livegood waxyaabaha kambanigani inta badan dadka jeclaysiinaya waxaa kow ka ah oo suuqyada marketingka oo aad ugu qabsaday kambaniyada kale oo dhanna oo kambaniyada kale oo dhan ay ugu soo biirayaan waxaa kow ka ah barnaamijkan ah wuxuu ku leeyahay waxaan ku siinayaa $2,000 adigoonan ii samaynin wax marketing ah adoo qafna ii diiwaan gelin ku leeyahay kambaniga taasi waxay caddeen u tahay waa waxyaabaha oo ku dhaafay kambaniyada kale oo dhan qofku dhahayo war wax marketing ha ii samaynin wax buying ha ii samaynin wax sal ha ii samaynin waxaan ku siinayaana lacag gaaraysa $2,000 waa waxa oo ku dhaafay dan waa ujeediinaan filayaa waxaan ku siinaya oo ku leeyahay lacag gaaraysa $2,000 okay dan waa ujeediinaan umalayna in fact you can earn up to 2,047.5 per month without ever enrolling I think person macnaheedu loo yahay $2,000 ayaan ku siinaa $2,047 bar aan ku siinaa bil walba adigoona hal qof ii diiwaan gelin taasi waxay caddeen u tahay in kambanigani uu ahay marketerada waxyaaba ay ugu soo biirayaan oo kambaniyada kale ugu horumaray ay kow ka tahay usoo degno kambanigani waxaa loogu sameeyaa 6 qaab lacag loogu sameeyaa 6 qaabna waa is arki doonaa insha allah qaabka koowaad oo kambaniga lacag loogu sameeyo waxay tahay weekly fast start commission waa lacagta isbuuclaha horta intaan taas u gelin ka hor horta waxaa jiro wax la yiraahdo indirect iyo direct commission indirect iyo direct commission waxay kala yihiin markaad kambaniga kusoo biirto oo isdiiwaan geliso oo darajada koowaad oo aad inta ku qoran oo aad tahay unranked ka aad tahay marka aad kambaniga 2 qofood kusoo casuumto
markaasi lacagtaas yani waxaad ku leelanaysaa lacag gaaraysa qofka markuu $50 kambani horta waxaa isku diiwaangeliya lacag gaaraysa $50 $50 marka aad isku diiwaangeliso oo laba qof kambani aad kusoo biiriso oo linkiga aad toos u siiso commission waxaa ku leeyahay gaaraysa $25 $25 marka waxaa la yidhahdaa wax la dhaho lacagtaas commission waxaa la yidhahdaa direct waa qof adiga toos kaaga talaala kambani adiga toos aad ugu soo talaashay oo linkigaaga qaatay aad toos qofkaas u diiwaangelisay taas waxaa la direct marka laba qof kambaniga aad diiwaangelisid waxaa soo gaaraysa darajo la yidhaahdo bronze markaa bronze aad diiwaangelisid markaasa waxaa bilaabanaya waxa la dhaho qofkii hadda waa isla soo garan qofka markaad dilkii aad toos siisa boqolkiiba 50 aa ku leedahay darajo walba joog ilaa 60 darajo oo ilaa diamond ka gaaraysa taas waa isku wada mid laakiin marka aad qofka aad keentay qofka oo sii keenay lacagta aad ka helaysin waxaa la indirect commission macnaa qofkan qofka oo sii keenay oo boqolkiiba 10 aa ku leelanaysaa oo lacag $5 ah okay marka aad darajada silverka aad gaarto asagna 10 qof aa lagu gaaraa 50% oo $25 waa direct lacagtii ahayd wixii ka hooseeyana waa indirect oo dadka aa keenta dadka ay sii keeneen aa la yidhahdaa darajada goldly marka aad gaarto ayadana waa 30 qofood oo toos ah aa lagu gaaraa ama 3 silfarood inaad soo saarto saddexda markaad goldiga gaarto oo 30 qofood gaarto markaad qof si toos kaaga diiwaangeliso waa 50 waa 25% ee lacagta wuxuu kambaniga oo qofku si toos ah ugu soo dirto kambaniga si toos ah oo 50% kaaga qofkaas aa ku leedahay wixii ka hooseeyana waa tii hadda soo sheegan waa indirect okay darajadan sii wad platinum gaar oo 500 qofood aysan lagu gaaro ayadana markaad 50 markaa qofka si toos linkiga u qaato waxa 50% yaa ku leedahay oo kambani adiga aad diiwaangeliso wixii ku hooseeya ilaa darajada ilaa level 8 uu kambaniya chance ku siin wax ka samaysid ama commission aad ka heshid asagana wixii ka hooseeyana waa indirect commission okay waa isla fahanaa inta sunana diamond asagana waa sidaas oo kale midan weekly fast start commissionka ayada waa si fiican horta aan usii jilciyo weekly fast start commission waa lacagaha isbuuclaha ee isbuuc walba soo dhaca kambaniga haddaa maqashay lacag isbuuclaha soo dhacda waa midan koowaad waa lacagta isbuuclaha soo dhacdan wax kale maahan waa kambani dadka sida tooska u diiwaangelisay waa darajo walba joog xataa maanta arrinkidka aad tahay oo kambani maanta aad kusoo biirtay oo maanta kambani aad kusoo biirtay oo kambani laba qof aad kusoo diiwaangelisay $50 aad bixisay oo isla $50 jimcaha soo socota caawo kale haweenkii xal la soo dhaafayo kale aa la qaataa lacagtaas soo dhacda lacagtaasna waa la helay walaalo badan oo meeshan ku jira markhaati ka ah oo ayagana haddaa rabtin hadhow aan siin karno jaaniskaasi waa ka gudbaynaa darajadaani waxaa jirto darajo kaloo la yidhaahdo matrix commission waa maqashay aan u malaynaa darajadii haddaa lacagta iisoo sheegaayo oo ah $2,047 iyo barqaabka ay ku imaada hadda isla fahmayna insha allahu tacaala matrix yay anfacaysaa matrix waxay anfacaysaa qofka yidhaahdo war anigu ma shaqaysan karo wax dada ma aqaano wax marketing ma samayn karo wax salal iyo buyna ma samayn karo qofka noocaasa kambaniga fursad u siinaa taasi waxay caddeen u tahay kambanigani in qof walbo qofkii marketing fahansan qofkii aana dad aqoonin qofkii wax diiwaangeli kaan diiwaangelin kambaniga inay u wada sameyn yihiin oo lacag ka wada sameynayaan matrix u shaqeeyaa marka isla fahmi matrixka waa ahay marka lagu leeyahay $2,047 bara lacag ku siina adigoo qofna ii keenin u baahan inaa isla fahano maxay tahay taas kambanigu system waxaa jira u diyaarsan oo dadka ugu talgalay markaad kambaniga kusoo biirto ilaa lacagtaasi arrankidka marka aad tahay $2,047 halkan hoostaana noogu qoran tahay $2,047 waa marka arrankidka aad tahay qaadanaysa laakiin goormee qaadane meeshan waxaa ku qoran ilaa 12 level ku qoran levelada ujeedina ma 1 2 3 4 ilaa 12kaas level marka ay kugu buuxsanto lacagtaas qaadanaysa marka levelka koowaad badanaa kambanigu macnaha wuxuu ku buuxsamaa in laba qofood aan levelkaas koowaad kusoo galayso labadaas qofood waxaa ku leeyahay 2.5% u dhiganta 0.25 laba qofood haddaad lacagtiisa ku fatid waxay noqonaysaa $0 adiga lacag weyn aas kasoo tolonin kambanigu marka uu ku leeyahay $2,047 ku siinaa lacagtaasi waa inay horta 12kan level buuxsantaa markay 12kan level buuxsanto hadda level koowaad laba qof oo ku buuxsanto levelka marka aad tahay afar qofood 0.25 ku dhufo waxay ku noqonaysaa lacag $1 ah marka waxaasa kuu buuxsamay marka lacagtan goorma bilaabataa waa marka
lacagtan waxay bilaabataa marka aad kambaniga 2 bilood ku jirtid waxay u baahan tahay inaad dulqaadaysid haddaad dhehaysid wax market ma aqaan haddaad dhehaysid war qof aniga kuma soo xiri karo kambani haddaad dhehaysid ani salin baya ma kasaay haddaad dhehaysid kambaniga matrixuu kuu diyaariya laakiin waa inaad dulqaad yeelataa lacagtan 2 bilood kadib ay bilaabataa haddii waxaa aad dhehaysid laakiin aniga wax aan marketing sameynaya ma jiro waxaad kambani kusoo xiraya ma jiro haddaad dhehaysid lacagtaani 2 bilood kadib inay bilaabataa iska suuragala waxay 3 bilood kadib ay noqon kartaa 4 bilood ay noqon kartaa 5 bilood ay noqon kartaa 6 ilaa sanad marka adiga jawaab lacag iska soo tolani marka waxaad laakiin waxa ka wanaagsanba intaad 2,000 oo sanad dhan aad sugi lahayd ama lacag 50gaas aad ku jiri lahayd inaad kambaniga inaad shaqaysato oo wuxuu ahaa marketing kambaniga samaysa 2 qof kusoo xirto 3 qof kusoo xirto war dadka aad isku soo xirayso kambaniga ha yaraada hal qof ha ahaada xataa naftirkiisa ugu yaraan hal qof ha ahaado oo joogto ah kambaniga maanta marka dambe waxay gaari doontaa hal ku dar waxay gaari doontaa marka adoo darajo diamond joogto darajada ugu dambeeya oo lacag ku xisaabtamaayo 16,000 ah adiga 2,447 ku xisaabtamaysaa dadka qaarna 16,000 ay ku xisaabtamayeen isku mid ma laakiin shaqaa lagu kala tagay marka waxaa waaye leveladan marka arrinkidka aad tahay 12 level markay kuu buuxsantaa lacagtan 2,047 bar ah helaysaa darajada bronze oo 2 qof loo gaaray aan soo sheegan ayadana waxaa waaye ayadana 13 level uu company oo waxaa chance ku siinaa markii ay kuu buuxsanto inaad lacag qaadad gaaraysa 4,090 dollar bar darajada silverka asagana 10 qof lagu gaaraa asagana markii companygu asaga iyo bronze waa isku mid ilaa 13 level company chance ku siinaa waana isku mid lacagtooda lacagaha billaha 4,095 dollar bar aad yeelan doontaa insha allahu tacaala darajada goolliga oo asagana 30 qofood lagu gaaro oo si toos ah ama 3 silfaro inaad soo saarto ilaa 14 level oo kambaniga fursad kuu siinaa ka samaysa lacagta ka samaynaysa bil walba waxay noqonaysaa marka 14 level kuu buuxsanto lacag waxaa ku xisaabtamaysaa bishii 8,191 dollar bar asaga iyo platinum waa isku mid diamondna ilaa asaga 15 level oo kambaniga ku ogolyahay waana 16,000 dollar marka gunaanka haddaa usoo laabto matrixka waa 6 matrixka dadka qaar target gar 2,000 kaliya dad qaar ka fikiro laakiin 2,000 inaad sanad isku quud ma aha darajadan diamond ku xisaabtan dadka qaar maanta waxa waaye liidaradu maanta ugu sareeyo darajadan way gaareen laakiin leveladooda qaar aad buuxsamin dad qaar soo tijaabi soo arkay adigana waa gaari kartaa haddaad naftaada aamid ilaahayna ku kalsoonaato haddaad intaas la fahanteen waxaa iisoo qortaan chatka waan iisoo qoraa adinkoo maadsan haddaad ila fahanteen waan iisoo qoraa insha allahu tacaala okay kule waxaan filayaa ila fahanteen waa mahadsantihiin darajada saddexaad ama weyga saddexaad oo kambaniga lacag loogu sameeyo wuxuu yahay margin bonus war margin bonus maxaa tahay kambaniga inta waxaa ku qoray wax la yiraahdo wuxuu ku leeyahay war aniga waxaan ku siinaya lacag gaaraysa wuxuu ku leeyahay as a huge as the fast start commission oo lacagta isbuuclaha ama matrix bonus yayo matrix haddaan kasoo hadalnay oo margin bonus are even bigger macnaha wuxuu la jeedaa lacagta isbuucla ahaa iyo lacagta matrixka ah waxaa ka weyn margin bonus see ugu weyn tahay hadda isla arkeena margin bonus marka aad tahay oo marginka yani lacagaha marginka waxay yihiin 3 qof oo kaasoo talaalan kasoo qaada ama 5 qofood oo maanta kale kaasoo talaalan 5 qofood oo kaa talaalan yani lacag matrix waxay heleen kasoo qaado kale lacag $1,000 ay heleen maanta lacagaha $1,000 ay heleen yani waxaa ku leedahay qof walbo adiga aad diiwaan gelisay ama hoostaada yaalo 50% aa ku leedahay 50% maanta $1,000 qofkaan helay 50% maxay noqonaya $500 noqonaya lacag yar maaha markii ka weyntaa lagu dhaawaa saas hadday 3 qofood ay yihiin 500 waa dadka xisaabta ku fiicnaa $1,500 ugu xisaabtamaya hadda adiga naftirkaa $1,000 markaas aad samaysay isku darso ka noqonaya $2,500 ku xisaabtamaya lacag yar ma aha marka uu leeyahay way ka weyn tahay margin bonus waa 50% lacag yar ma aha 50% oo qofkan wax walba uu helo 50% hadduu qofkan 500 250 aan leedahay waa 50 oo kala qaadanaysiin hadduu qofkaani 2,000 oo helo 1,000 oo kala qaadanaysaa marka
inaan intaa matrix ku xisaabtami lahayd oo $2,047 iyo bar aad target garan lahayd waxaa ka qurux badan inaad margin dad soo saarato shaqaysato margin bonus aad ku xisaabtanto oo markaad dad badan soo saarto dadkaas ay matrix helaan adigna 50% ugu xisaabtamay targetka halkaas ahaado laakiin ina han gaabnaato $2,047 iyo bar aad dhahdo waxa laga fiican yahay waaye laakiin waxaan rajeynaya inaad kor usoo kici doonto adinka dhan insha allahu tacaala marka marginka markuu wax walba ka wana oo lagu leeyahay uu ka lacag badan yahay waa sidaan dadka kaa diiwaan gashan oo si toos ah ugu diiwaan gelis kambaniga aad yani mar walba 50% yaa ku leedahay marka iyadoo darajada loo fiirinayo iyadoo generationa loo fiirinayo markaad qofka personal enrollment uu yahay 50% ee qofkaasi aad ku leedahay silver marka aad joogto 10% yaa ku leedahay qofka oo sii keenana asagana generation 2ga asagana 10% yaa ku leedahay gold markaad joogto 5% yaa ku leedahay qofka oo sii keenana asagana waa indirect 5% yaa ku leedahay platinum asagana ilaa 4 fac ku ogolaanaa 5% 5% ugu horeeya waa direct commission saddexda kalena waa indirect commission diamond ka aad joogto darajadaasi ilaa 5 fac ku ogolaanaa inaad muxuu ahay diamond matrix ama margin lacag ugu samayso waa marka koowaade waa 3% uu companigu faa'iido faca koowaad inuu 3% kaa siiyo wixii kale ay keenaan dadkan kalena muxuu ahay indirect ah oo 3% ayagana oo kaa siiyo wax walba ay helaan marka haddaa midaas ila fahanteen inaad waxaa rajeynaa aad meesha igu soo qortaan wana igu soo qortaan idinka mahadsan two igu soo qortaan ugu jeeda sorry waa mahadsantihiin walaalo badan ujeeda meeshan rajeyna inay ila fahanteen midaasna weyga afraad companiga lacag loo sameeyo waxaa la retail commission retail maxaa tahay retail iyo fast start commission waa isku mid darajooyinka iyo qaabka lacag loogu sameeyo oo haddaa arrankeedka aad tahay 50% yaa ku leedahay haddaa bronze aad joogto 50% qofka toos linkiga u qaato kaad linkigaaga qaata kow sii qaado oo wuxuu ahay qofka kale macnaha oo linkigaaga kale macnaha qofka aad diiwaan gelisay hadduu badeecadda aad wuxuu ahay linkiga aad siiso sii iibiyo lacag indirect 10% oo aad ku leedahay hadduu iibiyo silver waa isku wada mid waa fast start commission waa qaabka ugu sameeyay qaabka lacagta ugu sameynaysa retail commission kan ugu sameynaysa waa tan waxay ku saabsan tahay macnaha waxa la jeedaa productiga lacagaha lagu sameeyaa waa ka gudbayna ayadana waa influencer bonus ayadana waa isla waa productiga qofka productiga iibinayo dadka inta badan affiliatorka ah ayaa inta badan fahansan waxaan productiyada iyo qaabka loo iibiyo dadka affiliate marketing dad badan ku xamaashay ayaa jira dhalinyaro badan ku xamaashay ayaa jirta qof alaab walba aad iibiso commissionkeeda alaada waa sidaas oo kale meeshan laakiin wax ka dheeriyo company ku siinaa meesha imo kasoo qaad $2,500 hadda company maanta u iibiso linkigaaga marka toos qofka u qaato oo isku diyo oo yani alaabta ugu iibsado horta mar walba hore waxaa ugu lahayd 50% haddaad ama qofkeen ama alaab qofkaa ka gato 50% mar walba lahayd additional commission yaa jira marka company oo janis ku siinaa oo 10% iyo kugu daraa war 50 horma weysid 10% yaa lagugu daraa markaas waxay noqonaysaa total commissionkaaga boqolkiiba 60% haddaa $2,500 company u iibisid 60% commission company ku geliya $5,000 haddaad companiga u iibiso 50 aad hore u weysatay waxaa lagu daraa 20% 70% ee commission ahaana lagu siinaa 10,000 markaa company u iibiso commissionkaagii hore 50 ahaa iyo 30 isku darso 80% ee ku leedahay markaa $10,000 company u iibiso productiyadiisa $25,000 markaad companiga u iibiso badeecadiisa 50 aa hore weysatay 40 aa u geysta 90% ku noqonay 50 marka aad 50,000 ama $50,000 markay companiga u iibiso 50 aa hore u haysatay iyo 50 kale isku darso waa 100% boqolkiiba boqol ku leedahay companiga haddaad midaas ila fahantiin tiri isoo qor adinkoo macsan isoo qora walaalo badanaa ujeeda waa mahadsantihiin walaalayaal darada diamond waa darajada aan wada tiigsanayno diamond and cromboard waa laba darajo oo dul saaran diamond companiga marka aad tahay waxaad companiga ugu xisaabtami doontaa 2% oo ah companiga memberska dadka kusoo biirayo
lacagaha billaha oo $10 dadka dhiibanayo wuxuu ahay dadka productyada iibsanayo wholesale oo company uu sameynayo ama companyga bishaas oo dhan wuxuu sameeyay ugu xisaabtamaysa 2% qiimeynaa markaad diamond aad joogto oo leveladana ay ku buuxsamaan waxaa jira ayadana chrome diamond oo darajadan saaran ayadana 2% company kaa siina wholesale oo sameeyo wuxuu ahay lacagta billaha $10 qof walba dhiibo iyo yani memberska dad company kusoo bira oo 0.5% companyga oo ahay kuu siina marka chrome ball ay gaartay marka sharaxadeeni halkaasay ku eg tahay maxaan raacinayaa marka companygu walaalo badan aan rabo inaan wax ku ogaadaan companygu horta $50 companyga isku diiwaan geliyaa sida saxda ah marka kusoo biirayso $50 $50 maxay yihiin $40 aad diiwaan gelina $10 waa dukaan aad company ku dhex leedahay dukaanka company aad ku dhex leedahay muxuu yahay ama u qaado in companygu ay yihiin yani wax ama $10 inaad commission aad company ku darsanayso ama investment kaaga soo noqonayo meel hadda wax ku maalgashato maxaa ka filaysaa in ama sanadka wax kaaga soo boodo markii meesha wax ku maalgashay ka faa'iiday kani waad investment ku darsatay oo kale waa teeda kale wixii kaa saaciday marka companyga lacag ka samayso kale ama waa dukaankaadii iyo wuxuu ahaa bahalkaaga ilaashinaysa ama meesha lacagta kugu soo dhacaysa waa marka $10 waa muhiim dadka inta badan waxaa lagula taliyaa inay $10 inaad iska hilmaantaa suuragala inaad si toosa lacag u dhiibto lacag gaaraysa $150 hal mar wada shubtaa ka qurux badan inta iska hilmaami lahayd bilaadanana waa hilmaan badanahay dad badanaa maanta inta team dhistay oo $50 inta membership samaystay teamna dhistay oo $10 laba jeer markii ay dhiibo markii saddexaad iska hilmaamayba oo matrixkoodii dadkii teamkii wixii dhan laga xaayo qof cusub haddoo kale ah taasina culays ay leedahay haddaa awoodid dhiib haddaadan awoodinna $10 bilowba iska baxso uu culaysa mala marka combanygani waxyaabaha ku jeclaysiinaya oo combanygani aad ku jeclaysiinaya waxaa kow ka ah 10 shay company kusoo koobayna waxyaabaha company ku jeclaysiinaya horta combanygani wuxuu ku leeyahay asaga maba kuu khasbaayaba inaad buying iyo sell samaysid inta badan companyyaashii hore waxaa suuragala marka aad rabtid in aad companyyaasha kusoo birto waxaa lagu leeyahay war hebelow waa inaad horta kooda hore iibsataa lacag productyada company waa inaa iibsataa war ma jirin yaa leedahay companyga war wuu ku anfaca ama wax walba qab wuu ku anfaca lagu leeyahay macnaha waxaa lagu qasbaa inaad wax iibsatid okay hadda combanygani horta inaa wax iibsi kugu qasbi maayo inaa alaab u iibsina kugu qasbi maayo waaba soo aragnay oo matrix adadaadan waxba iibin oo ama company waxba aad yani waxay dadna kusoo biirinay lacag commission matrix laa leedahay oo 12 level markay ku buuxsanto darajo walbana leh darajooyinka ay kaliya levelan ay kala duwan yihiin aa loogu talagalayba midda labaad companygan waxaa kale oo ku jeclaysiinaya waxaa kow ka ah companyga horta maraykanka laga leeyahay waad dareemi kartiin maraykanka waa dal horumarsan waxa productyada loo soo saarayana waa wax la hubiyey hay-ado waxay leeyihiin caalamiya oo yani wuxuu ahay daawooyinkooda productyadooda wuxuu ahay approve gareeya hubiya waxyaaba ku jeclaysiinaya kow ka yihiin in productyada companyga ay soo saaraan in approved ay heleen wacda waxaa waaye cuntada productyada ama cuntada dadka yani loogu talagalay inay deegangareeyaan approved siisay ama shahaado caalamiya siisay companyga waxyaabaha ku jeclaysiinaya ayuu kow ka yahay companygan wuxuu kulo jeclaysiinaya midda saddexaad oo companyga ku jeclaysiinaya waxaa ka mid ah waxaad ka samayn kartaa $2,000 adigoo qofna aad diiwaan gelin waa midda hadda soo arkayn waa middan in fact you can in $2,047.5 per month with all even enrolling a single person adoo qofna diiwaan gelin qofna aadan keen wax badeeca a iibin companyga $2,000 ka samaynaya waa tii matrixka waa aan kaga sheekeynayo waxaa kaloo companyga ku jeclaysiinaya qodobka afraad oo ah waxaad helaysaa lacag bilah iyo lacag isbuucla ah lacagta bilah waaba isla aragnayba lacagta isbuucla ah waa middan oo weekly start fast commission lacag isbuucla ah hadda maanta hadaa qof diiwaan gelisid maanta soo caawo soo sabti soo geli mayso ama jimco soo maaha jimco soo kabixi mayso caawo hadduu aad laba qof oo diiwaan gelisid isbuuca soo socda habeenka jimco oo caawo kale lasoo dhaafayay $50 company ku leedahay oo kontigaaga aa ka fiirsanaysaa aa lagu dhigaya waa bil walba iyo isbuuc walba lacag u sameynaya bil walbana matrixkaaga iyo commissionka aad ka heshay iyo wuxuu ahay marginka aad lacag ku leedahay iyo productyada waxaad iibisay midda shanaad oo company ku jeclaysiinaya waxaa kow ka
lacag qof walba heli karaa asagoona qofna diiwaan gelin ama alaab ha ii qof diiwaan geli ama qof diiwaan gelin ama alaab gad ama hagadin qof walba kambaniya lacag ka helaysaa lacag ka helaya ama marketing samey ama harka sameyn ama alaab iibi ama ha iibin waxyaaba ku jeclaysiinaya ko ayuu kiikaya taasi waxaa idin sii raacinaya kambaniga markaad member ka tahay waay marka ku leeyahay yani qof walba lacag helaya waa marka member ka tahay oo kambaniga aad yani kontonkiisa doolar aad dhiibatid $10 bilahana aad axoo ahay aad ilaashid dukaankaaga oo bil walba $10 dhiibatid ama $150 si toos aad isku dhiibatid maxaa ka hadlaya waxaa jirto kambaniyani midda lixaad waxaa jiro waxa la yidhahdo direct commission war direct commission maxaa tahay direct commission waxaa qof walba aad si toos u diiwaan gelisay boqolkiiba 50 si toos ugu leedahay taasi waxaa la direct commission daayirana idinkaga soo sheekeynaya waxaa rajaynaya taasna inaad fahantiin waxaa jiro waxa la dhaho indirect commission isaga muxuu yahay dadka aa keentay oo tiimkaaga oo tooskaaga talaan dadka ay sii keeneen waxaa la indirect commission wax walba aad ka heshay waxaa la indirect commission bronze haduu yahay 10% aad ku leedahay silver soo sii socod ilaa 4 level oo aad ku leedahay indirect yaa wixii ka hooseeya indirect lacag lagu sheegay taas gooliga asaga ilaa 6 level ku ogolyahay marka kan laga soo tago 50% qofka si toos ah wixii ka hooseeya waa indirect yaa la platinum asagana ilaa 8 level lacag ka siina 50 ka saar oo qofka si toos kaaga u diiwaan geliso company uu soo biirisay ama qofka iibsado ama si toos company oo adiga member ugu linkiga ha u qaato levelada ka hooseeya oo dhanna waa indirect 50 waa direct company waxyaaba ku jeclaysiinaya waxyadana waxaa qodobka sideedaad company ku jeclaysiinaya waxay margin bonus companygani waa waxyaaba aad ku jeclaysiinaya qof walba oo matrix hela oo companyga adiga aad ku soo dartay oo adiga aad soo diiwaan gelisay kiiba 50 waxaa siinaya companyga taasi waa fursad weyn intaad $2,000 ku fikir lahayd war margin ku xisaabtan qudma ina $2,000 aad ku xisaabtan bishii oo iska sugato aad wax marketing ma sameeyna wax dad ma keena wax product ma iibinay inta diile ina lacagaha margin ka team dhisata ka qurux badan oo margin aad ku xisaabtanto qof walba 50% aad ku leedahay qof walba shaqeey 50% aad ku leedahay taadana beenana ku taala taasi waxay kamid tahay waxyaabaha company ku jeclaysiinaya waxyaabaha kale company ku jeclay waxaa kamid ah qodobka 9aad no week leg kambaniyada kale waxaa suuragal marka aad ku birto in warlugtaan iga jilacsan warlugtaan iga soo toos no strongly lugtaan awood ma leh warlugtaan iga soo dhis kambanigani waxa waay haddii aad qof kartid isbuuca hadda qof qortid maanta imaha soo socda kala bixaysaan kala baxna kitaabka qawmee dhan dhalinyarada xaafad jimcaha soo socda lacagtaada helaysaa waa soo itaabsii marka sabab ma aqaano oo company sidaas aad maanta iskaaga meemeerinayso qodobka 9aad waa kaas qodobka 10aad wuxuu yahay waa lacagta bil walba $10 aad dhibayso cid aanan awoodin maanta ma jirtaa filaa $10 oo $10 oo yani maanta da 50% $10 isku diiwaan geliso $10 cid walba heli karto qof lacagaysta ay qofkaanan hiisanba marka taasi waxay cadeen u tahay kambanigani inuu dhinac walba fursad ku siiyey hadda kambanigani maanta 10 bilood ay kambanigan u jiriyaa marka la gaaro bisha 12aad waxaa suuragal ah kambanigani oo u dabaaldegayo sanadka koowaad oo kambanigan dhisan yahay shaqeynayo waxaa suuragal ah in ama qodobada kambani macaan wax lagu soo biira la bedelo maadaama hadda kambanigani 700,000 oo qofooda kambaniga maanta aad ka diiwaan gashan ama waqti walba kusoo biirayso hadda sida saxda ah oo newska soo bandhigay 700,000 oo qof ka diiwaan gashan waa affiliate marketer taas waa cadeynaya 700,000 oo qofood oo kambaniga maanta ku jirto macnaha iskuma wada raacin kambanigan qalad iskuma wada raaci karaan haddii sax ahayn marra la wada danaysan lahaa taas waa cadeyn tahay in kambaniga kambani shaqeynaya oo marka waxaan rajeynayaa inaan sharaxadeeda aad u fahanteen insha allahu tacaala waxaan doonayaa inaan halkaas uga baxo aan kusoo dhaweeyo leader Halwa Cali leader Halwa Cali soo dhawow aad iyo aad mahadsan tahay Cabdullaahi leader Cabdullaahi ma sha Allah sharaxaad aad u qurux badan runtii aan dhihi karo
annaga wax badan ka fahanay walibana caaw ataabatay ayaan ku leeyahay aad iyo aad caqliga iyo cilmigaada iyo masha Allah hal abuurkaada iyo kartida ilaah ku barakay waa mahadsan tahay masha Allah hala yiraahdo masha Allah loo soo qoro Cabdullaahi waa leader muddo hal bil ah ayuu ku jiray waa ka maanta idin sharaxayo waxaa la oran karaa bisha ayuu ku jiray wuu ka faa'iidaystay waayo cilmigii ayuu xooga saaray marka aad kambaniga soo gashid haddii aad dhinaca cilmiga xooga saartid oo tiraahdo war horta aniga waxaan doonayaa waan oomanahay inaan bal horta biyaha cabo qofka markuu afuro ama afurkii cuntada ay hortaalo waxa ugu horreeya qofka uu afka saarayo marka laga soo taga laga yaabo dadka qaar inay timirku afuraan laakiin qofka nafta waxay doonaysaa waa biyo ka waran haddii biyo ay weyse markaad afurtid waxba dee cuntada kale waxba kuuma tarayso sidoo kale marka aad barnaamijku cusub tahay aad soo gasho waxaad oga oonbaxdaa waa inaad cilmigii barnaamijka ku saabsanaa baratid waa inaad wax badan ka faa'iidid oo aadan ka noqonin qof marti ka ah laakiin aad barnaamijka dhex gashid ee aad fahantid ee aad falanqeyn badan samaysid analyze aad samaysid si markaasi wixii adiga aad ka baratay kaa anfacan aad uga qaad dadkaadana aad uga gudbisid xilliga maanta la joogana adduunka waxaa laisku dhaafay ganacsi kasta wuxuu u baahan yahay marketing ganacsi kasta ee soo baxa ama ha noqdo offline ama online ha noqdo wuxuu u baahan yahay marketingkana waa xirfad la barto affiliate market waa xirfad la barto marka maasha Allah Cabdullaahi waa ku hambaleynayaa inaad ka faa'iidaysto barnaamijkan aad fahantay maantana adiga aad inoo sharaxday caawo aad nooga faa'iidaysay aad iyo aad mahadsan tahay waxaan rajaynayaa dad badan oo su'aalo qabay oo caawo isla hatalo maxaa halkaas aad kala kulmi doontaa ee cusba in iyaga naftirkooda hadda su'aalo kale ay u soo baxeen wasaan idin sheeg buug iyo qalin haddaad qaadato su'aalaha notes aad qoratid waxaad heli doontaa jawaabahooda markaad raadisid waxaad ku noqonaysaa dabcan liidarkii intaan liidarada kale u gudbin iyo liidarada banaalka nala saaran waxaan siinayaa injineer maxamed jaamac bal isagana inuu insha Allah wax ku daro injineer soo dhow waa dhowahay coach xalwo aad iyo aad ba u mahadsan tahay sidoo kale aad waxaan ugu mahadnaqayaa liidarkii caawa xisada ku jimicsaday fadlan maasha Allah mar kale hambaliyo ku dhiirigeliya xaqiiqatan waxa weeye liidarkaasi caawa wax badan ayuu dul istaagay wax uu ka tegay hadda aan ku darayaa ma jiraanba xiisada siday tahay bilow ilaa dhammaad 10 qaab ee xitaa kambaniga ku jeclaysiinayo iyagana si gaar ah kugu sharax markuu presentation ku dhameeyay ay 10 qaadob oo isna ku jeclaysiinaya kambaniga ayuu raaciyay waxaan kaloo ku dari lahaa qodobada ku jeclaysiinaya kambaniga waxa ka mid ah oo walaalaha ku jira ay markhaati ka yihiin lacag la bixista kambaniga ka warrama qof walba chat ku soo qor wixii aad shaqaysatid khamiista ama bisha si nadiifa ma u heshaa isla habeenkaaba 777 isoo qor haddii aad warkaas sax yahay aysan walwal lahayn lacag la bixisiiso sida kambanigu u fudeeyay passport ma leedahay cid ku weydiin mayso ID ma haysta lagu weydiin maayo KYC ama approve lagu weydiin maayo waxaa shaqaysta nadiif ma ku qaataa waxaasaan idin haynaa haddaba marka waxa weeye haddaad marka meel cillaa taagan tahay aday kugu taallaa hadda tartankaasoo kale halkaasaa loo orday loo tartamaya sooma ka war haddaad ka soo horjeysatid ka war oo meeshii laga yimaado noqotid ama saacadda aad market garaynaysid wax waa hore laga tegayba oo aadan digital marketing hadda meesha la maraya aadan u warhaynba ama meel hore aad iska bustaha ku yaallo bustaha ka soo qaado tartanka liif guud adduunka soo gal waxa weeye directionka saxda u ordo insha Allah inaasaan ku daraya aad iyo aad baa u mahadsantihiin si gaar coach xalwo yana xisda xiriirisa u mahadnaqaya back to you xal walaal aad iyo aad mahadsan tahay injineer maxamed jaamac waxaan haysanaa saacadda aan ugu talagalnay waxaa inoo dhiman wax ka yar 7 daqiiqo waxaan siinayaa 2 liidar si markaasi iyagana ay noola wadaagaan shucuurtooda iyo barnaamijkaasay u arkaan liidarada banaalkii la saaran waxaan ku hormarayaa liidar bile cusmaan liidar bile soo dhawow weliba ku hambaleenaa si gaar ah waxaad noqotay isbuucaani aad waxaan oran karaa aad xiriga ka jirtay darajada la yiraahdo gold hambali oo ku hambaleenaya soo dhawow marka ugu horeyso caaw dad badan ayaa ku jiro zoomka waxaan ku leeyahay kulley shirkaddan markaad kusoo biirtay ilaa maanta wax badan ayaad ka baratay welibana waxaad tahay liidar aad u dulqaad badan caqabado badan kasoo gudbay soo dhow walaalo maasha allah waa salaamaya dhammaan leaderska iyo asxaabta kale halkan ku jirta maasha allah waa idin mahad celinayaa leaderska mar walba noo taagan inay kambanigan ay wax badan naga fahamsiiyaan dadka kale ee barnaamijkan inay ka faa'iidaystaan jecelna wax uga sheegaan marka qof walba halkan ku jira insha Allah tacaala waxaan ku dhiirigelinayaa inuu kambaniga ka faa'iidaysto fursad qaali waaye marka qof walba uu ka faa'iidaysto insha Allah waa Janis maantay dad Soomaaliyeed ku caawinaya haysataa marka
hadalkayga waxaan kusoo koobayaa qof walba uu ka faa'iidaysan Allah waa fursadii maanta 2023 waa fursadii adduunka qof walba waa ka faa'iidaysan insha Allah dhammaantiin aad u mahadsantihiin insha Allah halkaas aan kusoo koobay hadalka